puntland gabi ahaanba wasiirada madaxweynuhu magacaabay waa soo dhaweynayna waana waxaan baliyeenayna wasiirada iyo madaxweynaha dawladda puntland soo magacaabay waxa weeye wasiirro yar oo kooban oo tayo leh waddanka ka shaqeeya oo la yaqaan oo wax ah baa la rabay madaxweynaha puntland inuu magacaabo baana laga filayay wasiirro badan oo tayo yar buu magacaabay marka arrintaas aan uga soo horjeedaa anugu عابي أد بقوا عصنا دي برتون كل معاي برتون وقوا عصنا داوال كريمدو قلنا مدحونا waxa ka filanaa inuu muujiyo nin abaal galay gudaha wasiirka warfaafinta ma taageersani sababta aan taageersani waa sheegaya booskaas waa boos expire buu noqday si qaatuma macnaha laga dhisay booskaas marka hal la cuno waxa ugu horeeya oo aan qabanayana waxa weeye waa wadada garacad baan wax ka qabanayaa waxa ka mid ah gobolka mudug amnigiisa in wax laga qabto waa la socdaa inay maanta ay soo magacaabeen xalay wasiiro in soo magacaabeen wasiiradaas waxa weeye anagu aad iyo aad baan u soo dhaweynayna waxa weeye wasiiradii awal la magacaabay jiray si ka sii fiican oo dadka waxa weeye miisaanka ee gobolka ee ama Puntland si ka wanaagsan oo sare buu u sameeyay marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxa weeye hadee qofku waxa weeye wasiirka ugu horeeya maaliyadana waxa weeye waa wasiirka ugu adag wasiirka maaliyadana wuxuu la mid yahay madaxweynaha buu ku xigaa oo jikada ugu fiican weey marka madaxweynuhu qaabka uu xulista u sameeyay adigu ku qanacsantii aad iyo aad baan ugu qanacsanahay maxaa yeelay qolada hadda wasiirka la siiyay maaliyadda qof kastoo reer Puntland waa garanayay intii cabaad iyo qaylo ay ka jireen oo waxa weeye ka hadal jireen hadee wuu fuliyay Soomaaliya qof saa wax u fahmana hadda dani ma jira marka waxaan leeyahay aad iyo aad baan u mahadsan tahay inuu gobolka mudug u roonaada isleedahay gobolka mudug waxaan leeyahay aad iyo aad waxa weeye buu ugu fiican yahay laakiin aanu kala saari mayo gobolada wuxuu waa isku mid gobolada lama kala saaro Puntland waa isku mid laakiin hadana gobolka mudug nahay wasiirkii qoladii waxa weeye qolada hadda la siiyay waxa weeye aad baan ugu faraxsanahay iyo matalaadka gobolkaba aad baan ugu faraxsanahay marka maadaama ay heshin hadda wasiirka maaliyadda ilaa 4 wasiir uu gobolka mudug hadda sida la hubo uu helay yani hadda hawlaha qabyada in ka waa wadada isku xirtaa ilaa dekada garacad marka soo ma filaysaan in wadadiidaas si degdeg ah leedin ku dhiso insha Allah madaxweynuhu hadda ka hor waa ka ballan qaaday wuxuu yiri markii anigu hadaan soo noqdo wuxuu yiri waxa weeye gobolka mudug si gaar buu la hadlay oo waliba heer gaara buu Puntland ku leeyahay gobolka mudug waxa weeye hawl fiican wuxuu yiri waxa ugu horeeya oo aan qabanayana waxa weeye waa wadada garacad baan wax ka qabanayaa buu yiri Soomaaliya haddana waxa weeye wasiirkii maaliyadda laftigeedii waxay la mid tahay iyadoo wadadiiba la sameeyay bayba la mid hambaliyo waxaan u hambaliyeenayaa madaxweynaha Puntland wasiirada uu magacaabay aad baan ugu hambaliyeenayaa haddana waxaan leenahay madaxweyne waxa ku xijay wasiir ku-xigeenka ku xijay dawladda cusub soo dhaweynaynaa si wanaagsan baan u soo dhaweynaynaa dadaalkii ay wareysiga dheer aad u gashay waana mahadsantahay madaxweyne sida shaqada ay kaaga go'an tahay qof iyo codna ka sii shaqeeya hadii lahayn aad iyo aad buu soo xilay madaxweynuhu maskaxda tuujiyay uu ka fikiray arintaasu wax wanaagsan buu qabtay wasiiradaas uu magacaabay wasiiro fadhiya weeye shaqa ballaaran bay dalka u qabtay u qabanayaan hadii lahayn annaguna waa soo dhaweynaynaa waan u hambaliyeenaynaa dadaalka madaxweynuhu galay iyo maskaxdu shiilay waana wax wasiirada waxyaabaha ka codsanaysa in gobolka mudug loo qabto maxaa ka mid ah waxa ka mid ah gobolka mudug amnigiisa in wax laga qabto qof doorasho qof iyo codna wax laga qabto hadii lahayn aadna loo shaqeeyo doorashada qof iyo codna meesheeda laga sii wado amnigu waa fiican yahay ciidamadu waa shaqeeyaan aad bay u shaqeeyaan taliyaha qaybta iyo barasaabka shaqa ballaaran waddanka ka wadaan in la sii laba jibaaro hawshaas shaqadaas waa sii laba jibaaran hadii lahaydmo shaqo wanaagsan baa socota wasiiradu waxay nagu soo korin doonaan hadii lahaydmo عابي أد بقوا عصنا دي برتون كل معاي برتون وقوا عصنا Puntland state كذي الصعد كذا ولا بهاي هو مهم إلا ساعة هو مهم إلا خلاف هذا لو شقة بكرة ولا شقة ولا هذي لا ببنت كلها وصل هلا يجوا وبلا صعد هلا يجوا والدنيا هلا يجوا وودك هلا يجوا ولا بتاعتهم ديك الصباح ولا كتر ولا ما طلع قتل ليا كلها تكوسير دولة بالله الله مقعاوي كلها تكوسير دولة بالله شغال في عام خفلنا دولة شغال في عام خفت وايا وقبلنا سكشان في عام لقدوا waa sax madaxweynuhu maadaama dawladda Puntland madaxweynuhu xukuumadda magacaabay
wax badan baa dawladda ka tabanayna dawladdan reer mudug waa soo saaray reer Puntland oo dhan waa og yihiin daawalka reer mudug galeen madaxweynaha wax ka filanaa inuu muujiyo nin abaal galaa guda gowle haddii hadda adinku gobolka mudug markii la fiiriyo wasiiro waxa ku soo aaday wasiiro waaweyn baa ku soo aaday kula reer mudug baatid marka ku qanacsantiin xulashada uu sameeyay madaxweynuhu horta madaxweynaha aad baa ugu qanacsan hadaan ku qanacsanay maanu dooraneen madaxweynaha Puntland oo gamaan dhignay waxa weeye madaxweynuhu gobolka abaal hor u gashaday dawladdii madaxweynuhu xukuumadda hadda uu madaxweynuhu magacaabay hadda waa arrin filan oo suganay waxaana suganay dawladda maadaama dib loo cusboonaysiin in dawladdu wax qabadkeeda aan ka hordegin wasiirada uu magacaabay lambar madaxweynaha waa soo dhaweynaa sida waliba gobolka mudug xogaa uga dhisayna waa macnaha ku mahadinana laakiin waxaan leenahay mudug xagga wadooyinka anu hadda bajaajanahay wadooyinka waa ku dhibana nimankaas soo magacaawday iyo adiga waa inaad xoogga saartaan in wadooyinka loo dhiso gobolka mudug baan macnaha farana madaxweynaha waxaan intaa ku darayaa wasiirka warfaafinta ma taageersani sababta ma taageersani waa sheegaya booskaas waa boos expire buu noqday SSC qaatuma macnaha laga dhisay booskaas marka hal la cuno hal la siiyo Axmed Harti waxa la siiyo laga bedelo halka qaatuma qofka ku abtirsanaya booska warfaafinta jooga exchange lagu sameeyo hal la bedelo madaxweynaha waxaa leenahay madaxweyne xukuumaddaada waa inay shaqaysaa oo sidii hore si ka fiican u firfircooni loo shaqaysaa siiba gobolka mudug xagga amniga iyo xagga magaranaysa wadooyinkaba waa ka aradaya si kale kuma gartay waa ka aradaya marka aad baan u soo dhaweynaynaa xukuumadda cusub ee dani iyo wixii kasta magaranaysa cusub uu magacaabo madaxweynuhu mucaarad kuma nihin laakiin say u shaqeeyaan ayay shacabku eegayaan waana soo dhaweynayaa wasiirada cusub oo magacaabay Saciid Cabdullaahi Dani madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani runtii aad baan ugu qanacsannahay waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo waxqabad ummaddu ku qanacday inay la yimaadaan oo waxa weeye ummaddu ay in badan sugaysay saaxay wasiirada waxaan u arkaa si fiican inkastoo ay soo daaheen waxaana ku taageeranaa shaqadii qabteen shaqada ku dhawaaqeen wallahi waxaan ka filanaa kama warqabnaa laakiin kama hor dhacayna waa sugaynaa wax sameeyaan shaandheynta wasiirada aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dawladda Puntland horumar iyo khayr baan ka rajaynaynaa waa kaasa marka magaalada Gaalkacyo saakay sidee ayaa looga dareemayaa yacni wasiirada xalay la magacaabay magaalada Gaalkacyo aad iyo aad baa loogu soo dhaweynayaa wasiirada xalay la magacaabay madaxweynaha oo kuwan weynaa inuu wax ka bedelo waddankan isbedel ku sameeyo mashaariicdii wax walbaba iyo dhaqaalaha midaada kalena madaxweynaha inuu ogaado arnaa dadka ajaanibta oo magaalooyinka Puntland oo dhan meel kasta joogo inuu ajaanibta canshuur ka qaado sida anaga canshuurta naga qaado marka wadamada aadno ayagoo waxay dhakaaraysan bay shaqadii nagu cariiriyeen shaqadiina ayaga qabsaday waxba nama dheero madaxweynaha dawladda Puntland marka hore waa u hambalyeynaya wasiirada uu magacaabay 22 xubnood ah muddo badan laga dhawreeyay annagu waa taageersanahay ama gobolka mudug ha ahaato ama gobolka bari ha ahaato ama gobolka nugaal ha ahaatee madaxweynaha dawladda Puntland maadaama madaxweynaha dawladda Puntland 2 sano loo doortay wasiirada uu magacaabay waa soo dhaweynaynaa nooc kasta ay tahay waayo deegaan ahaan iyo dal ahaan baan u soo dhaweynaynaa shakhsi ahaan uma kala jeclaa annagu inuu gobol ahaan iyo deegaan ahaan iyo degmo ahaan ma kala jeclaa xukuumaddii la magacaabo annaga nasiibkeena qalinkeena ku dhacay ee gobolka mudug haddaan nahay waana soo dhaweynaynaa waana u hambalyeynaa wasiirada cusub oo la magacaabay iyo dawladda Puntland in badan madaxweynaha laga dhawriyo wasiirada waayahay markii aan fiirino wasiirada eeda ay ku soo oo baawarka weyn leh iyo hadda baahida idin taagan gobolka mudug oo ah dekada garacad in loo helo wada laami ah marka say isku qabanaysaa aad baa u mahadsantahay walaale gobolka mudug Soomaaliya oo dhan taariikh buu ku leeyahay waad ogtahay Soomaaliya oo taariikh u leh maanta hadduu helay wax ka foynina helana waa rajeynayna madaxweynaha dawladda Puntland waa ka rajeynayna waa dhawaana dekad baa dhisatay maantana wasiirro ayaa heshay dekad baanu dhisannay meel fiican baanu maraynaa wasiirada ayana waa helay Puntland gabi ahaanba wasiirada madaxweynuhu magacaabay waa soo dhaweynaynaa waana u hambalyeynaa wasiirada iyo madaxweynaha dawladda Puntland soo magacaabay waayahay wasiirka hadda ku faraxsantiin ee maaliyadda loo magacaabay ee ka soo jeeda gobolka mudug maxaa fariin oo aad halkan uga marinaysaa wasiir gooniya fariin u marin mayo wasiirada dawladda Puntland baan u marayaa la magacaabay waxaan rajeynayaa in mas'uuliyadooda ka adkaadaan gobol kasta ay u dhasheen iyo meel kasta la magacaabo waxaan jeclahay xukuumad shaqaysa maadaama 22 ay yihiin madaxweynuhu inuu soo magacaabo madaxweyne wasiirro tayo leh marka wasiirada cusub waxaan ugu maaqayaa in xilkooda ka adkaadaan amaanada ummadda Soomaaliyeedna ka adkaadaan
reer Puntland gobol ahaan iyo degmo ahaan ay u kala jeclaaneen cidda loo magacaabay oo Puntland inay aad uga shaqeeyaan mas'uuliyadaasna ay si fiican ugu shaqeeyaan adinkoo shacabkana waa ku qanacsantiin annagu shacabka hadii madax meel ka sareeya lama salaaxo xilkuna loo wada deeqo madaxweynaha dawladda Puntland baa magacaabay ninkii xilka helay mas'uuliyadiisa ka adkaadaan leh wasiirada waa la socday waana arkay oo 12 wasiire anigu waxaan u arkaa inay waxa weeye arrintaas waxa weeye arrintii la filayay aysan ahayn waayo horta qanacsanaantaada marka la fiiriyo adigu shakhsiyan muu qanacsantaa wixii xal lagu dhawaaqay mise waa ka soo horjeedaa maya kuma qanacsan anigu waa ka soo horjeedaa waayo maxaa sabab waayo waxa uga soo horjeedaa wasiirada gobolka waxa weeye wasiirada Puntland awal bay wasaaraduhu badnaayeen 18 wasaaradood bay ahaayeen 3 wasaaradood oo kale cusub baa lagu soo daray wasaarada aan waxba ahayn baa la kala qaad oo laba wasaarad ka dhiga marka taas waxa weeye macnaha waxa weeye wasiirro yar oo kooban oo tayo leh wadanka ka shaqeeya oo la yaqaan oo wax ah baa la rabay madaxweynaha Puntland inuu magacaabo baana laga filayay wasiirro badan oo tayo yar buu magacaabo marka arrintaas aan uga soo horjeedaa anigu marka maxaa ku tiri tayadooda marka maxaa ka dhiman tayadooda haddii wasaaradaha la badiyo miyaan ahayn horumar yani shaqo badan lagu keenay maya mid xagga tayada markaan fiiriyo horta wasiiradahan la magacaabay wasiiradii la yaqaanay oo siyaasiyiinta ahaa oo Puntland 25 sano u soo shaqeeyay wax yar baa kaga jira waxa yaroo kaga jirana waa waxa xukuumaddii hore oo madaxweynaha hadda jooga wadanka jooga 5 sano hore la soo shaqeeyay waa kuwii wadanka 5 sano hore wadanka soo qarribay oo wax qabad xumadooda la arkay oo wadanka waxa weey hadda la arkay weey kuwa hadda kalena wasiirada kalena wasiirada la yaqaan ma ahanba hadda inta badan la magacaabay wasiirada soo shaqeeyay ma ahan maxamed salax saad saaxib sidoo aragtaa wasiirada la magacaabay maxaa ka filan doontaa wasiirada kala magacaabay saaxib soo dhaweynaa oo taageerina maxaa ka filan doontaa horta wasiirada la magacaabay wallahi sidoo ilaahay ka dhigay noqonaysa saacad si fiican baa warkaa waana wasiir fiican oo tayar shaqadooda ka soo bixi kara waana ku mahadsanyahay madaxweynaha dawladda Puntland aduna reer mudug ah tahay xal wasiiradaasi marka la fiiriyo gobolka mudug awood sare ma ku lahaydeen waa ku lahayn wasiirka maaliyadda ku leenahay wasiirro badan baa ku leenahay aad baa u soo dhaweynaynaa madaxweynaha ma idin dadaalmisay xogaa hoos si fiican meesha ka filan leeyahay dhiga waa ka marka maxaa ugu baaqaysaa golaha wasiirada iyo madaxweynaha dawladda Puntland inta waxa uu yaaqayaa wadanku inuu galo shaqo wanaagsan oo si sharaf leh u shaqeeyaan oo ay wax weey dalkooda iyo dadkooda u shaqeeyaan waa ka marka maxaa laga filan karaa waxa ka filanaa barwaaqo iyo horumar waxa ka filanaa laamiyo waxa ka filanaa inay dekada ilaa gaalkacay suuqa ay qabadsiiyaan laamiga waxa ka filanaa ilaa turdiweena suuqa ay qabadsiiyaan aad iyo aad baa u mahadsan